149 dal warbixintan daraasaadka lagu soo qaatay waxay sanadkii 2021 dadka dunida ugu farxadda badan markii afraad ay u dooratay in kaalinta koowaad uu soo galo King 252 kulanti wacan wanaagsan daawadayaal gebi ahaantiinba halkani waa janalka King 252 ku soo dhawaada gacmo furkan ugu soo biirtay fadlan subscribe noo saar si aad kaga mid noqoto asxaabta warbixinadeena ay soo gaarto dad ka mid tahayna asxaabtii hore inoola joogana waad ku mahadsantahay la joogistaada maanta waxaan idin hayaa warbixinta ku saabsan farxadda adduunka caalamka ayaa siyaabo kala duwan looga dabaaldegaa maalinta farxadda adduunka qaramada midoobay ayaa sanadkii 2012 Maarso u asteesay in sanad waliba loo dabaaldego maalinta farxadda adduunka ujeedada maalintan loo asteeyay ayaa waxay qaramada midoobay ay ku sheegtay in dadka dunida ku nool la dareensiyo muhiimadda ay farxadda u leedahay bini'aadamka haddaba maalintii farxadda adduunka oo sabti oo shalay ahayd ku beegneed waxaa baraha bulshada la isku dhaafsanayay mowduucyo la xiriira farxadda gaar ahaan farxadda ay ku jiraan wadamada carabta maxay yihiin shuruudaha heerka farxadda lagu cabiri karo sideeduba micnaha farxaddu waa mid ay dadku ay ku kala duwan yihiin ama farxadda qof waliba si ayuu u yaqaanaa wadamada sidoo kalena iyagu ay ku kala duwan yihiin qaabka farxadda looga dareemo balse qaramada midoobay oo maalinta farxadda adduunka u asteesay waxay ku micnaysay qofka sida uu noloshiisu ugu faraxsan yahay in loo cabiri karo laga soo bilaabo 2012 qaramada midoobay waxay soo saartay warbixin sanadle ah oo ay ku muujinayso cabirka farxadda ay u leedahay wadamada dunida shuruudaha farxadda lagu cabiri karo waxay qaramada midoobay ay ku soo koobtay 6 shuruudood kuwaasoo kala ah wadarta wax soo saarka gudaha celcelis ahaan da'da ay dadku noolaadaan xorriyadda ay u haystaan go'aanka gaaridda waxay intaasi wehliya in tayada adeega waxbarashada caafimaadka oo aan musuqmaasuq aan lahayn iyo heerka cadaaladda in ay dadku ay dareemaan balse warbixinta sanadkan qaramada midoobay ayaa ku diirisay farxadda adduunka waxaa lagu saleeyay sida uu cudurka safmarka ah ee coronaviruska nolosha dadkaasi uu u saameeyey iyo sidoo kale dawladaha sida ay ugu jawaab celiyeen cudurkaasi halista ahaa 149 dal warbixintan daraasaadka lagu soo qaatay waxay sanadkii 2021 dadka dunida ugu farxadda badan markii afraad ay u dooratay in kaalinta koowaad uu soo galo dalka Finland si kastaba ha ahaatee xaaladda 22 dal waxay ahayd mid wanaagsan wadamada dhowr oo ku yaala qaaradda Aasiya way wanaagsanayeen kaalimihii sanadkii hore ay ka galeen halka Shiinaha oo sanadkii hore ku jiray kaalinta 94aad uu sanadkan galay kaalinta 84aad Finland kaalinta ugu horeyso ayay ka gashay dalalka ugu guusha badan ee arrimaha bulshada iyo muwaadinimada ay ka midaysan yihiin ee quseeya nolosha iyo habnooleedka bulshada intii uu socday cudurka safmarka ahaa ayay yiraahdeen qobaradii wax darsayay ee qaramada midoobay hase yeeshee hal dal ayaa ku jira wadamada carabta kuwada kaalinta 10aad ee wadamada adduunka ugu farxadda badan sanadkan ee ugu horeeya la shaaciyay inkastoo liiska wadamada carabta si gooni ah kaligood loo diyaariyay in kaalmaha horena ay ku jiraan wadamada khaliijka wakaaladda wararka ee Faransiiska ka soo baxda ayaa waxa ay sheegtay qubaradu in ay sheegeen warbixintii kal hore ay diyaariyeen marka la barbar dhigo cilmi baarayaashu in ay ogaadeen in cudurka safmarka ahaa 3 meelood meel walba wadamada dunida in uu taabtay uuna saameeyay New Zealand waa dalka kaliya ee wadamada midowga Yurub ka baxsan ee kaalinta ama ka mid noqday wadamada 10 dal ee ugu farxadda badan leh adduunka haddaba halkan waxaad kugu soo gudbin doonaa sida ay u kala sareeyaan 10 dal ee lagu soo bandhigay liiskani dalka Finland waxa uu soo galay kaalinta koowaad dalka kale ee Denmark ayaa waxa uu ku jira kaalinta labaad kaalinta saddexaadna waxa soo caga dhigtay Switzerland kaalinta afraad waxa ku jira Iceland kaalinta shanaad waxa ku jira dalka Holland ama Netherlands kaalinta lixaadna waxa ku jira Norway kaalinta toddobaadna waxa ku jira Sweden kaalinta sideedaadna waxa ku jira Luxembourg kaalinta sagaalaad waxa ku jira wadanka New Zealand halka kaalinta tobanaadna uu ku jiro wadanka Australia
wadamada carabta inkastoo ay kaalinta 10 dal ee adduunka ugu farxada badan ay soo gelin 149 dal ee dunida, imaaraadka carabta ayuu liiskaasi wuxuu kaga jiraa kaalinta 25aad, halka dalka Sacuudi Carabiyana uu ku jiro kaalinta 26aad. Turkiga oo ah wadan aad u weyn adduunkan aad looga garanayo ayaa waxa uu ku jiraa kaalinta 104aad, halka dalka Pakistanna uu ku jiro kaalinta 105aad. waxa ugu dambeeya dalka Afghanistan waxa uu soo caga dhigtay wadanka 149aad. haddaba dhageystay inta warbixintan aad dhageysanaysay, wadankee ayaa istiri waa uu qaldan yahay ama waa uu saxan yahay kaalmaha uu ku jiro. inta ku kulmi doono warbixinta xigta waxaan kaga tegayaa sidaayo nabadgelyo.